madaxweyne farmaajo oo kulan degdeg la qaatay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida kuna amray inay baaritaan degdeg ku sameeyaan dilkii xildhibaanad Aamine Maxamed Cabdi iyo weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho wuxuu muujiyay inuu gacanta ku hayo talisyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyo amniga guud ee qaranka waxaana meesha ka baxay tuhun ka dhashay dilka xildhibaanad Aamina oo ay dadka qaar u adeegsanayeen inay ku duraan madaxweyne farmaajo iyagoo ku eedeynaya inay filadu qayb ka ahayd dilka xildhibaanada taliso kala duwan saraakiil ciidan oo caana iyo sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa kulankan ka soo muuqday shargareeya warbixinta galwareed oo degdeg ah ku eegayno kulankii madaxweyne farmaajo la qaatay saraakiisha ciidamada dawladda waxyaabihii ka soo baxay iyo fariimaha loo dhiibay saraakiisha baaritaanka degdega ee laga dalbaday iyo amarada la duldhigay ee ku saabsan inay amniga qaranka gacanta ku dhigaan bisha barakaysan ee ramadaanba ha ugu darnaatee muuqaalka leegta la dhaca oo beejikeena galwareeda soo fulow gareeya waa hagaag aan ku bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan degdeg la qaatay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida madaxweynaha ayaa kala hadlay ciidamada in la dardargeliyo amniga qaranka iyo sugidiisa sidoo kalena ay baaritaan dhaba ku sameeyaan dilkii xildhibaanad Aamina ee loo adeegsaday weerarkii ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo kalena waxa uu amray in talisyada ciidamada kala duwan ay heegan buuxa galaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan iyo waqtiga doorashada war ka soo baxay fila Soomaaliya ee lagu jiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyayaasha ciidamada xoogga dalka booliiska asluubta iyo nabad sugidda ayaa faray adkeynta amniga guud ee dalka iyo kan caasimadda madaxweynaha ayaa ka dhageystay talisyada booliiska iyo nabad sugidda Soomaaliyeed warbixino ku saabsan baaritaanada hordhaca ee falalkii argagixisanimo ee toddobaadkii tagay ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne isaga oo soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in ciidamadu ay kordhiyaan howlgalladooda iyo feejignaantooda maadaama dalku uu ku jiro xilli doorasho ayna nagu soo wajahan tahay bisha barakaysan ee Ramadaan oo sanadihii la soo dhaaf ay ku guuleystay dawladdu ka hortagga iyo yareynta dhagartii argagixisadu ay soo maleegi jireen bishan war ka soo baxay filada ayaa lagu yiri waxaan dagaal kula jirnaa cadow arxan laawe ah oo khatar ku ah amnigeena iyo jiritaankeena argagixisada al-shabaab ee aan la dararayno waxay ka shaqaynayaan gumaadka iyo xasuuqa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ka heli karaan fursadaas sidaas awgeed waa inaan markasta heegan buuxa ku jirnaa si dhowna ula shaqaynaa shacabkeena idinla garab taagan heelka iyo xogta dhagarqabayaasha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa faray taliyayaasha ciidamada qalabka sida in loo dhimriyo shacabka Soomaaliyeed xillada ay ciidamadu sameynayaan howlgallada lagu sugayo amniga sidoo kalena la xoojiyo wada shaqaynta iyo isdhexgalka hay'adaha ammaanka iyo bulshada si kor loogu qaado wada shaqaynta iyo kalsoonida shacabku ay ku qabaan ciidamadooda geesiyaasha ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib kulankii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha qaranka iyo taliyayaasha kala duwan ee ciidamada kulankan ay taliyayaashu la qaateen madaxweyne Farmaajo iyo amaradan uu duldhiga ayaa muujinaya in madaxweynuhu uu diyaar u yahay in amniga qaranka la adkeeyo lagana taxadaro wax walba oo soobi kara khilaaf horseeda in amniga qaranku khalkhal galo bisha barakaysan ee Ramadaan ay al-shabaab ka faa'iideystaan shargareeya warbixinta galwareed ee caawa qaybta faalada nooga wadaag aragtidiina tan iyo kulanti dambana nabadgeliyo.